wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Marwo Sahro Cusmaan Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xildhibaan Xaaji Cali oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah la yeeshay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada. Kulankan uu soo qabanqaabiyay maamulka degmada ayaa diiradda lagu saaray horumarinta adeegyada aasaasiga u ah bulshada ee waxbarashada iyo caafimaadka kuwaas oo muhiim u ah kobaca nolosha bulshada deegaanka. odayaasha dhaqanka deegaanka oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa si guud uga mahadceliyay mas'uuliyiinta maadaama wasiiradda oo waxbarashada oo ninkii qoyto horne nin qoyne oo indhaakne qof waxbarasho ku socodlay oo maamul state iyo wala dawladda dhexe alxamdulillah ilaahay soo waafajiyay qofkiina qof walkisiyo ama walisiyo ma inki weynayki wanaag badana qofkii walki baro qofkii waxa maadaama walana baroyna laakiin ma inoo caawiyo ay raayisheen wadde ama kaalmo ku wadde waxbarashada. Gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada ayaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ka codsaday in degmada lagu soo kordhiyo waxbarasho heer jaamacadeed oo aad loogu baahi qabo. Wadada tan inay dadku u baxaan Jimcaha Khamiis wax Muqdisho ka soo bartaan waa ku adagtaa. Waxa marqaati noogu filan isku duwaha waxbarashada degmada hooyadiis oo rabta inay examination ku gasho degmada soo socoto inuu degmada qarax kula kulmo iyadoo kamid ahayd laf dhabartii degmada dadka wax u bartay macallimiintii kamid ahaa imtixaan inay gasho inay musuubaas kula kulantay oo wadadii amnigeeda 100% ma ah arday wax baratay oo wixii deegaanka inay wax tartal rabeen maalinkaas wadada lagu deyn karo sidoo kale macallimiinta degmada oo ku yar yihiin isku duwaa waa wareysanay way ku yar yihiin macallimiinta ee wasaaradda manage gareyso degmada ku jireen waa yar yihiin waxa codsanayna in loo kordhiyo. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Fadil Macallin Cabdullaahi ayaa sidoo kale goobta ka hadlay walaweyn ma yahay wasaaradda meelahan ka badan oo de xaaladda waxbarashada la socotay isku ogdin wadankan roofu badan ah maray laakiin ma ilan baahanya anti la hela anti bulshada la ka wacyi geli lagu faa'iideysado geek adduunyada waxbarashada ka shalta lahayta de inni oo lan helna la fada lan walhan dhikana ba in isu jarn taas meelka deere horto wada shaqaynta bulshada in la hela nabadgelyada lagu shaqeey isdhaxgalka la hela guud ahaan saasawalka hirgalayaan. wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Marwo Sahro Cusmaan ayaa maamulka iyo odayaasha dhaqanka uga mahadcelisay dadaalka iyo wadajirka ay muujiyeen iyadoo ballan qaaday in wasaaraddu ka shaqeyn doonto dardargelinta heerka waxbarasho ee degmada. hadda lama iskool dhagax soo dhigni afar kana soo socdaan 6 iskool inaas buutan walsin karabe anuna markaas wasaaradda waxbarashada waxay siinsheenaasay macallimiin iyo waxay siinsheenaasay grants waxa uu jirtay hunguri oo ilmo la siiyaa feeding program oo lehe waxaas dhan markii oo qiimeeyaan oo wasaaradda dhahaas okay intee la siiyaa iskoolkee ardaydan ka badan gobolkee degmade ardaydiis an badanta ardayda ka hiranta siis an qorataan oo iskoolkii wacyi bulshada sangelisaan ina iskool waxbarashada العلم نور والجهل ظلام واللي مركا جهلي إنان كبانو لبك إنان كبانو باهد إنان كبانو بس وحاولن كباها كره إناس وحبرتان الموجين وحسبرتان. ugu dambeyn xildhibaan Xaaji Cali ayaa xusay in wax laga qaban doono baahiyaha ka jira degmada gaar ahaan sidii adeegyo caafimaad oo waxtar leh loo gaarsiin lahaa shacabka degmada Walaweyn. runtii ani in nasiibaan waalid in wasaaradda waxbarashada ka guuleysid in la iskool degmada Walaweyn يعني لما دقمت قداشة يأفر وبنانك يعني تقولوا تذكر لينجي والبرشة لينجي سين سفرنا يعني كوين هذا المهرجان مشروع كله يعني هذا اللي جاي دونا تقولوا كله سين لهم ولا بفرش لينجي والبرشة لينجي لان ساعدوا بيرسل فلو ساعدوا وين سوداجيو ساعد كل سكورشي كويل وشكل دي لاندي إن شاء الله الدنيا ما يكرمتي والبرشة كرمت والبرشة يكرمتي ولا الدنيا سقومي سويت علم واي بالبرشة لو كوري ديال iyo hees iyo walaay ma kor meel kor iyo barashada kor marmigdaan insha Allah in jadwal baro sidaan soo baahanya unuga beera in faleen ahaane unuga soo labiso ungul soo siiyo scholarship ilin baan zaad meel mubaahin zaad meel mubaahanya macallimiin tayale unuga soo labisi ungul soo siiyo scholarship diri oo si black in unuga barado macallin wal baro ilin shan ilin baan